dadweynaha magaalada Saylac ay horkacayaan mas'uuliyiinta degmada ayaa saaka ka sameeyay iska wax u qabso magaalada Saylac kadib markii roobabkii baahsanaa ee ka daay magaalada Saylac ay saameeyeen dekada weyn ee magaaladaasi ayaa dadweyne fara badan saaka waxay olole ku qaadeen dekada magaalada Saylac ee iskaga kala gooshaan baabuurta ka timaada Djibouti iyo Somaliland munaasabadii ayaa waxaa horkacayay barasaabka gobolka Salal Cabdilaahi Farax Meydane taliyaha qaybta booliiska Maxamed Farax iyo maayarka iyadoo halkaasina ay dadweynuhu ahaayeen mid iska wax u qabsayd iyagoo ay arrinkani baabuurtu ay ku rafanayeen dekadani u dhaxaysa cashuura kadib markii ay soo fadheen robabkii weynaa ee ka daay gobolka Salal dadweynahani ayaa iska wax u qabso waxay ku sameeyeen dekadaas oo iyadu burbur xooggan uu soo gaadhay isla markaana aanay mari karin baabuurtu sidoo kale dadweynahan ayaa waxa ay aad ugu faraxsanayeen in ay u qabtaan balse nimcada uu Ilaahay keenay sidoo kale iska wax u qabso ayaa waxa ay dadweynahani ku tilmaameen in baabuurta iskaga kala gooshaa dalka Djibouti iyo Somaliland ay aad ugu rabtaan iyagoona tilmaamay in ay arrinkani ugu baaqayaan xukuumadda Somaliland iyo hay'adaha si degdeg ah wax looga dhiso wadadani oo ay ugu daran tahay ayay yiraahdeen deegaanka cashuura isla markaasina lagu rabto waxaan intii halkaas ku sugnay indhaha iyagu qabteen baabuur iyagu aad u rafanaysa kadibna la daala dhacaya wadadan iyo sida ay u cakiran tahay tirsan wadayaasha baabuurtaasi ayaa iyagu noo sheegay marka ay marayaan wadadaasi inay aad ugu xun tahay isla markaasina aanay mari karin iyadoo roobabkuna ay wadadaasi u geystaan khasaare xooggan wadayaashan ayaa sidoo kale waxay baaq u direen wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta iyagoona tilmaamay wadada Toqoshi iyo Saylac isku xidha inay tahay mid aad u daran Bilsaman Maxamed Cabdilaahi shabakada caalamiga Shinil News magaalada Saylac